وعند وضيال ساعدوا ولبدي يولحي 8 دقيقة جيسك أفريقيا وضبط عاوة كودا وندونتان وركا channel كخصوص جوب ميديا وحاكم النقندونا دولة الصومالية أو شيكتي إن جعنت كل جيل مدحي سردونك على الشباب قبل كشاب الله حسين dalalka Uganda iyo Eritrea oo laga helay kiisaskii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus qaramada midoobay oo taageero u muujisay tigitaanka dani ee Muqdisho iyo kulamada uu la qaadan doono madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre dawladda oo dhaqaatiir iyo gaadiid hor la geysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wiil Soomaali ah oo laga helay xanuunka coronavirus oo muujiyay walwal ku aadan Soomaalida kale ee ku nool wadamada uu saameeyay cudurka taliyaha hoggaanka ilaalada canshuuraha booliiska Soomaaliya oo ka digay in la kordhiyo sicirka hawlgal dad lagu qabqabtay oo ka dhacay degmada Wadajir iyo maamulkaasi oo war ka soo saaray iyo guddiga doorashooyinka qaran oo golaha isku dhafka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dalbaday dadejinta sharciyada iyo habraacyada loo igmaday saacadu waxay tilmaamaysaa 2:16 daqiiqo xilliga geeska Afrika intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee warka channelka xusuus u joog media iminkana waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaas ka faahfaahsan halkani waa channelka xusuus u joog media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan bartaan soo gelino hawlgal ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen inay ku soo qabteen madaxii sirdoonka al-shabaab ee gobolkaasi sida ay qortay warbaahinta dawladda hawlgalkan oo si gaar ah uga dhacay nawaaxiga deegaanka Janaale ee gobolkaasi ayaa ciidanka xoogga waxa ay sheegeen in madaxii al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose oo ay magaciisa ku sheegeen Xasan Suleyd Ganay ay gacanta ku soo dhigeen taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka sareeye guuto Cabdi Xamiid Maxamed Dirir oo ku sugan deegaanka Janaale ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in sarkaalkani ay ciidanka ka soo qabteen Janaale isagoo u dhuumaaleysanaya kadib hawlgallo ay ciidanka ka wadeen nawaaxiga deegaanka Janaale taliyaha ayaa tilmaamay in haatan ay korortay wada shaqaynta ciidanka iyo dadka deegaanka taasi oo suuro gelisay buu yiri inay helaan xog fiican ma jirto wali wax wara oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ay uga hadlayaan sheegashada dawladda ee ah inay gacanta ku dhigeen madaxii sirdoonka al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose dalalka Uganda iyo Eritrea ayaa waxa laga helay kiisaskii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus waxa kiisaskii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus laga xaqiijiyay wadamada kale ah Uganda iyo Eritrea oo daris la Soomaaliya waxaana kiisaskan cusub ay sii kordhinayaan kuwii horey looga helay Afrika gaar ahaan bariga Afrika wasiirka caafimaadka Eritrea ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qof ka yimid dalka Norway isla markaana ka soo degay garoonka diyaaradaha Asmara laga helay caabuqa coronavirus kadib markii tijaabo lagu sameeyay dhanka kale aroornimadii saakay wasiirka caafimaadka Uganda Chen Roth ayaa xaqiijiyay kiiskii ugu horeeyay coronavirus ah oo laga helo dalkaasi waxaana wasiirku intaas ku daray in shakhsigaasi uu ka yimid magaalada Dubai ee xarunta dalka Imaaraadka Carabta sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo WHO ilaa kiisas kor u dhaafaya 1,000 kiis ayaa laga helay qaaradda Afrika iyadoo jimcihii dalka Zimbabwe uu xaqiijiyay kiiskii ugu horeeyay coronavirus qaramada midoobay ayaa taageero waxay u muujisay tagitaanka dani ee magaalada Muqdisho iyo kulamada uu la qaadan doono madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aanka uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku qaatay inuu ku yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidoo kale qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay xubnaha dawladda federaalka ka socday ee ka qayb galay shirka wada tashiga Puntland ee ka dhacay magaalada Garowe kuwaas oo iyaguna soo dhaweeyay go'aankii madaxweyne Dani ee ahaa inuu Muqdisho imaanayo qaramada midoobay
ayaa sidoo kale xustay in ay ka warsugayso natiijada ka soo bixi doonta kulanka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Deni si loo sii hormariyo wada hadallada ku dhisan danta guud ee Soomaaliya. hadalka ka soo yaray qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya xilli xubnihii ka koobnaa xildhibaanada iyo wasiirada ee ka socday dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland Siciid Deni ay ku heshiiyeen in uu yimaado Muqdisho si uu ula kulmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. dhinaca kalena wiil Soomaali ah oo laga helay xanuunka coronavirus ayaa waxa uu muujiyay walwal ku aadan Soomaalida kale ee ku nool wadamada uu saameeyay cudurkan. dalka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaal qaaradda Yurub ee la daaladhacaya dhibaatada ka dhalatay xanuunka safmarka ah. dalka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaal qaaradda Yurub ee la daaladhacaya dhibaatada ka dhalatay xanuunka safmarka ah ee corona ee faraha ba'an ku haya dalal ka badan 150 dal. dalkaas Jarmalkana waxaa ku nool Soomaali badan kuwaas oo qaar ka mid ah la soo sheegayo in laga helay cudurka corona. Maxamed Cabdi Jaamac oo ku nool magaalada Hamburg ee wadankaas ayaa markii uu cudurkaas laga helay kadib waxa uu BBC-da uga waramay markii cudurkan uu ku dhacay sida uu noqday. wiilkan Soomaaliga ah ee ku nool dalka Jarmalka ee laga helay cudurka coronavirus ayaa waxa uu walwalsan yahay Soomaalida kale ee uu ku arkay calaamadaha uu markii hore isagu isku arkay misana aan isu soo baarayn. waa hagaag daawadayaal waxaad daawanaysaan warka channelka Xusuuso Joog Media qaybaha dhexe ee warkana waad la socotaan. markaana taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu ka digay in la kordhiyo sicirka. taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta ka digay in sicirka kor loo qaado. shirkan jaraa'id ee uu maanta ku qabtay General Cabdullaahi Xasan Bariise taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku saabsanaa digniin uu u diray ganacsatada Soomaaliyeed oo ah inaysan sare u qaadin maciishada qutul daruuriga ah iyaga oo ka faa'iideysanaya dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurka coronavirus ee loo yaqaan COVID-19. sidoo kale taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono qofka qaadan waayo digniinta ay u direen. hadalka ka soo baxay hoggaanka ilaalinta canshuuraha ayaa wax badan u tari doona shacabka Soomaaliyeed oo ka walwalsan in lagu qaaliyeeyo maciishada qutul daruuriga ah. guddiga doorashooyinka qaranka ayaa golaha isku dhafka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dalbaday dadejinta sharciyada iyo habraacyada laga doonayo. qoraal ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxa golaha shacabka ay kaga dalbadeen inay dadejiyaan sharciyada laga doonayo iyo sidoo kale habraacyada, waxaana si gaar loo tilmaamay golaha isku dhafka ah ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. ugu horreyn guddigu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo sharciga doorashooyinka ee la meelmariyay isla markaana uu madaxweynuhu saxiixay, waxaana arrinkaas ay ku tilmaameen arrin taariikhi ah. sidoo kale guddiga ayaa golaha sharci dejinta ka dalbaday in ay dadejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo haatan hor yaala golaha shacabka si bay yiraahdeen ay xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh inay ka qayb galaan doorashada 2020-2021. wasiirka amniga Jubbaland oo muddooyinkii dambe baxsad ahaa ayaa maanta waxa uu gaaray degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose. wararka qaar ee aan helayno ayaa waxay sheegayaan in wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan uu gaaray degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose. garoonka diyaaradaha Dhobley ayaa waxa wasiir Cabdirashiid Janan ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo saraakiil ka mid ah ciidanka daraawiishta maamulkaasi. wasiirka amniga Jubbaland oo baxsad ka ahaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu Dhobley inta uu ku sugan yahay uu la kulmi doonaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaan isaguna halkaasi gaaray. guud ahaan daawadayaal waxa intaas ku dhan warkii oo aad kala socoteen channelka Xusuuso Joog Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka codsanaynaa inaad rukumato oo aad subscribe saarato sidoo kalena aad furato gambaleelka muuqaalkaana aad la wadaagto saaxiibadaada kale.